Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee adeegsata barta Instagram-ka ayaa intooda badan waxa ay ka falceliyeen qoraal kooban oo Cabdifataax Albakri uu soo geliyay bartiisa Instagram-ka. Qoraalkaasi oo dadka intooda badan siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen, isla markaana bogaadinaya hambalyo ay hawada u mariyeen Cabdifataax iyo sidoo kale Happy Xilwa. Cabdifataax waa mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhowaanahan aad baraha bulshada looga hadalhayay, isla markaana ka mid ah fanaaniinta kuwoodii ugu cusbaa ee fanka Soomaaliyeed dhowaan uun kusoo biiray. Arrintanna waxa ay si toos ah u qusaysaa isaga iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Happy oo iyadu ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee adeegsada aaladaha social media sida TikTok iyo sidoo kale Instagram-ka. Dhowaanba sida wararka iyo barnaamijyada hore aad kusoo maqasheen iyo muuqaalada kan ka horreeyay aynu ku eegaynay, Cabdifataax ayaa qoraal kooban oo ay dadku la fajaceen waxa uu soo dhigay Instagram-ka. Qoraalkaasi oo ay dadka muujinayeen in jacayl baaxad weyn uu qabo Happy Xilwa, waxaana qoraalkiisa ku xusnaa waxa uu yiri sida tan: naftan kaa xiisa go-een. Qoraalkan ayaa waxaa la socday sawirka Happy Xilwa, waxaana arrintan ay rumeysay shakiga laga qabay in Cabdifataax iyo sidoo kale Happy Xilwa uu xiriir dhex maray. Waxaana ogeen in xilli ay ku sugneyd gegada diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ka ambabaxayay Cabdifataax Albakri, in Xilwa ay siyaabo kala duwan uga hadashay safarka qofka qaaliga ku ah nafteeda, kaasi oo ay sheegtay in ay dareemeyso cidlo kadib markii uu ka duulay garoonkaasi, isla markaana uu gaaray magaaladiisii Stockholm ee dalkaasi Sweden. Cabdifataax Albakri ayaa dhowaanahanba wararku ay sheegayeen in isqabqabsi xagga jacaylka uu kala dhexeeyay wiil lagu magacaabo Cabdulaahi Kashka. Inkasta oo Cabdifataax uunan qudhiisa ka hadlin arrintan, ha yeeshee Happy ayaa siyaabo kala duwan dadku ay wax uga weydiinayeen arrintan madmadowga iyo shakiga ku jiro iyo waxa ka run ah, waxaana ay ku jawaabtay in uu jiro xiriir dhex maray iyada iyo sidoo kale wiilkan cusub ee fanka ku jira ee fanaanka ee lagu magacaabo Cabdifataax Albakri. Dhanka kale, waxaa iyadana arrintani kor usii qaaday shakiga iyo tuhunka dadku ay muujinayeen, isla markaana waxoogaa dadku ay rumaysteen in ay sax tahay kadib markii uu qoraal kooban uu soo geliyay barta Instagram-ka Cabdifataax Albakri, dabadeedna uu siyaabo kala duwan dadka ka falceliyay, intooda badan uu ku bogaadiyey. Dadkuna intooda badan waxay ahaayeen kuwo iyagu aada uga falcelinaya, isla mar ahaantana bogaadin iyo hambalyo hawada u marinaya. Intooda badanna waxa ay isticmaalayeen halkudhigyo ay ka mid yihiin dumaashi iyo sidoo kale seedi ereyo la mid ah, taasi oo ka dhigan in dadka taageerada u ah Happy intooda badan ay soo dhaweynayaan jacaylkeeda cusub ee lagu magacaabo Cabdifataax Albakri. Haddaba, jacaylkan hirgelay lamaanahan dhexdooda iminka xidhiirka iyo hasaabaha uu ka hana qaaday ayaa dadka intooda badan waxa ay si toosh ugu ifinayeen Happy oo dadku badankood ay aada ula socdeen barteeda TikTok-ga, iyada oo martigelineysay qaar ka mid ah dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada. Waxaana waayadii dambe ay ka agdhoweed fanaan lagu magacaabo Qamar Suugaani, inkasta oo horey uu xiriirba ugala dhexeeyay wiil lagu magacaabo kana mid ah wiilasha TikTok-ga isticmaasho ee asxaabta ay yihiin, kaasi oo la yiraahdo Kinjestay. Inkasta oo ay jirtay dhinaca kale tuhun iyo sidoo kale arrin la xiriirta hasaabaha ka dhexeeyay iyo kalgacalka u dhexeeyay iyada iyo sidoo kale Cabdulaahi Kashka. Waxaana muuqaalkiisa xige, sida aynu ku sheegnay muuqaalkii ka horreeyay, Cabdulaahi Kashka oo xurguf ay dhex martay wiilka lagu magacaabo Cabdifataax Albakri, isla markaana la sheegay in waxyeelo uu u geystay kadib markii uu helay xogta ku saabsan in uu yahay shaqsi ku maqan, isla mar ahaantana jacayl u sheegtay ama uu kala dhexeeyo gabadhan Happy Xilwa la yiraahdo. Haddaba, muddooyinka ugu dambeeyay hadalhayntan waxay ka taagneed baraha kala duwan, gaar ahaana TikTok-ga. Dadkuna waxay ahaayeen kuwo aada uga falcelinaya, qaarkoodna siyaabo kala duwan oo jees ah hadallo ugu soo qoraya gabadhan Happy la yiraahdo. Intooda badanna waxa ay ahaayeen kuwo si aada ugu dhaleeceynaya tallaabada ay qaadatay xagga nolosha marka ay timaado
wiilka horey jacayl uu kala dhexeeyey oo la sheegayay in ay kala tageen oo xiriirkooda marka uu soo afjarmay isaga oo aan weli ka dhaqaaqin oo halkiisa u taagan jacayl in ay u tallaabtay wiil lagu magacaabo albakri kaasi oo jacayl cusub uu dhex maray. haddaba qof weliba iyo jooskiisa iyo dooqa iyo gayaan xulashada marka ay timaado, ha yeeshee dhalinyarada kuwooda tiktok iyo baraha kala duwan caanka ka ah ayaa mar walba oo ay aada isaga agdhowaadaan waxaa lagu xantaa in xiriirkooda uu yahay mid laablakac ah, isla markaana lagu tilmaami karo waanku arki waa ku caashiqe, wax noocaas oo kale ah. sidoo kalena la sheego inuu yahay mid xiise keliya ku kooban oo aanu ahayn jacayl baaxad weyn oo ilaa xad guur gaara. happy oo ka mid ah gabdhaha tiktokarada kuwooda caanka ah magaalada muqdishona ku nool, isla markaana hibooyinka kala duwan u leh xagga talentiga, haddii ay noqon lahayd sheekooyinka majaajilada iyo madadaalada baraha kala duwan ee dadku ay aada ugala socdaan, iyada iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada reer muqdisho. haddaba iyadoo aynu ogeen in xifaaltanka xagga xiriirka uu ka dhex taagnaa dhalinyaradan dhexdooda, happy oo qudheeda kasoo muuqanaysa dhowr muuqaal ayaa iyadu waxay ahayd qof si aada uga hadla arrimahan, sidoo kalena dhinaca kale si waxay uga hadlaysay si dadban xiriirka iyo arrintan mar allaala marka lagu soo hadal qaado, waxaana ay ahayd qof aada uga gaabsado waxyaabaha markaasi xiriirkeeda ku taxalluqo ee daakhiliga ah, isla mar ahaantana iyada oo cabsi ka qabta in dadka baraha bulshada adeegsado siyaabo qaldan ay u faafiyaan hadalladeeda, isla mar ahaantana fariinteedu ay noqoto mid niyadjab ku noqon karta qaar ka mid ah dad iyadoo xiriir kala dhexeeyey xogahoodana ku raad jooga. haddaba cabdifataax waxauu ka mid yahay fanaaniinta kuwoodii cusbaa ee fanka kusoo galay muddooyinka ugu dambeeyey, waxaana uu soo gaaray magaalada muqdisho sida wararka hore aynu ku helnay marka uu muqdisho muddada uu ku sugnaa dhowr aroos iyo xaflado kala duwan ay iskala muuqdeen happy xilwa. imikana waxaa soo baxday fariinta iyo sidoo kale dhambaalka hawada la isku marinayo ee kalgacalka leh, isla markaana lagu cabirayo jacaylka mugta weyn ee mugta leh anirahda ee u dhexeeya labadani qofood. muuqaalka iyaga intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. waad ku mahadsantihiin sida aad nagu xidhneedeen. subscribe inoo saara janalkan, like muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. waxaan kuu rajeyneynaa in aad markaasi gudatay waajib weyn, sidoo kalena aanu aada kaga mahadcelinayno wax walba oo aada nagu garab istaagtay xagga ku biiritaanka iyo sidoo kale nagu taageeridda dhanka janalka iyaga.